السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Samarka Code Academy sidii hore aad nooga barateen baryahan waxaan isku daynay inaanu barno dadka maxay ahayd Solidity oo ah luqadaha ka mida ay ku dhisan tahay Ethereumna ay tahay smart contractska waxaan la yidhaahdo blockchain technologyga cusub ee la yidhaahdo dadka isku xidhaysa adduunka oo dhan isku xidhaysa si aan dowladaha iyo muxuu ahaa aanay u kala xidhin shirkada iyo waxaas u kala xidhin dadka isku wala xidhaysa technologyga quruxda badan leh ay ku dhisan tahay sida oo ka mid tahay bitcoin ay ka mid tahay haddaba qofka wuxuu soo weydiiyey Solidity qofka waa inuu yaqaano javascript iyo python iyo c iyo inuu qofku yar yaqaano weeyaan luqad yar sarreysa weeyaan qof imika bilow ah halkee looga bilaabi lahaa waxaan odhan lahaa waxaan helay CS50 program la yidhahdo really introduction oo aad u fiican CS50 say yidhaahdeen waa javascript waxa weeyaan glass ay dhigtaan ardayda muxuu ahayd jooga Harvard University waxaan u malaynaya inay yidhaahdeen sidoo kale Princetonna way dhigtaan ardayda jooga Yale waan u malaynaya iyaga laftigooda inay ku jiraan adigu waa galaas caalamiya oo muxuu ahaa ka baxa Harvard University marka waan iska bilaabanaynaa shayga ugu horeeyaan doonaya horta in idhaahdo oo ayaguna ku bilaabeen wuxuu weeyaan what ultimately matters in this course is not so much where you end up relative to your classmates, but where you end up relative to yourself when you began. macnaheedu waxa weeyaan weliga halkan dalkan aanu joogno waxa la isku qiyaasaa la iskuma qiyaaso qofka kale ee ku xiga halku ka maraayo iyo kooda xariifsan waxa la isku qiyaasaa halka adigu aad ka bilowday iyo halka taagan tahay haddii shalay tole aad gama ahayd laakiin maanta xariif noqotid that's all that matters intaasuba ka socota adduunka haddii mar adaad beri toole ka sii wanaagsanaatidna ahlan wa sahlan nin ka sii wanaagsan baa tahay marka shalay toole laguma evaluate garanayo shalay toole kuma hor taalo beri toole saa dambana beri maahay saa dambana dee maanta kuma hor beri toole kuma hor oo leanayso right marka waa inaad kasii fikirto inaad maalinba wax kusii darto adduunka iyo maskaxdaada haddaba computerku sidaad og tahay gebigiisuba waxa weeyaan waa stupid weeyaan waxaan malayacni weeyaan waxaad adigu tidhaahay samee mooyaane wax kale ma sameynay waxaad arkaysid iyo waxaan ku dhufanayna iyo videoga imaka aan duubaya dad baa dee program ku qoray oo waxa weeyaan suurtageliyay marka waa qof program qoray waxa la yidhaahdo compiler ayaa lagu dhex ridayaa compilerkaasina waxa weeyaan wuxuu u bedelayaa luuqadda anigu aan ku qoray amba python ha noqoto amba javascript ha noqoto amba c ha noqoto amba c++ ha noqoto amba ruby on rails ha noqoto amba swift ha noqoto amba go ha noqoto intaasoo luuqadood baa jira amba low level xataa si noqoto luuqadda la yidhaahdo assembly language ha noqote waxay doontaba ha noqotee waa waxaan qofku qoray anigoo kale dadna compiler lagu riday compilerkaas dadna output soo daynaya oo waxa weeyaan resultskii soo bahalaynaya haddaba inaku waxbaynu ku tirsanaa sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayaynu wax ku tirsanaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 computerku laakiin luuqad kale u fahmaa marka tusaale ahaan aynu akhriyayno 123 tusaale ahaan dee waxaan idhaahnaa waxa weeyaan waa 10 right gebigeeduba waxay noqonaysaa 123 waxay u dhigmaysaa waa hal lagu dhiftay 100 loo geeyey 2 lagu dhiftay 10 loo geeyey 1 lagu dhiftay 3 soo saasuma 123 gebigeedu waa sintaas waa 120 loo geeyey 1 loo geeyey times 3 right taa macnaheedu waxa weeyaan haddaynu idhaahno 10 bay ku dhisan tahay
toban zero marka lagu power gareeyo waa maxay waxa weeyaan hal right toban lagu power gareeyey hal waa toban toban lagu power gareeyey laba waa boqol toban lagu power gareeyey saddex waa kun so sidaa maaha marka haddaan doonayo inaan 1506 aan qoro waxay noqonaysaa waa hal lagu dhiftay 1000 loo geeyey 5 lagu dhiftay 100 loo geeyey 6 lagu dhiftay 10 loo geeyey 3 lagu dhiftay 1 sama 61 loo geeyey 500 561 loo geeyey 1000 1561 right haddaba hadday marka inaga powerkeena waxay ku power garaysan tahay sad arkaysid mid walba wuxuu ku power garaysan base-ka u ah 10 baa base u ah hase ahaatee kombiyuutarradeenu ma fahmaan luqadayna ku aynu qorno waxay fahmaan waxa la yidhahdo binaryna waa hal iyo zero amba 0 iyo 1 amba waa on amba waa off sad ogtihiinna kombiyuutarka haddaad u daadegtid gebigiisba waa transistor waa dabkaa gelaya oo dadna dabkaas transistoro midba inuu sii deynayo haddii microcontrollerad hore u isticmaashay sida muxuu ahaa Adreno Uno amba Raspberry Pi amba chips waxay doontaba ha noqotay oo project yar engineerna aad hore u baratay gebigeedu waa transistor leerka xataa imika aan isticmaalaya transistor baa ku dhex jira right waayo haddii kale beri hore filmka ku dhex jira ee layda beri hore guban lahaa sidaa aawadeed kombiyuutarku amba markuu khasinad haddaad tidhaahid 3 haddii tidhaahid x amba magac equals Muhammad haddaad tidhaahid oo kale kombiyuutarka waxaad leedahay khasinad la yidhaahdo magac kombiyuutarka iiga dhex samee magaca Maxamed la yidhaahdana ku dhex rid daba magaca Maxamed la yidhaahdo kombiyuutarku ma fahansana kombiyuutarku wuxuu fahansan yahay karakterradan oo nambaro u sii dhigma hadhow baanaynu ka hadli doonaa right marka haddaynu nidhi binary buu ku dhisan yahay binary oo labuu ku dhisan yahay powerkiisu halkaa 10ka ahayd waxay noqonaysaa 2 marka waa 2 2 0 oo ah hal 2 to the power of 1 equals 2 2 to the power of 2 equals 4 2 to the power of 3 equals 8 2 to the power of 4 equals 16 and so on right marka taa macnaheedu waxa weeyaan halkaynu inaku keenu 10 uu ka yahay kombiyuutarku 2 basekiisu ka yahay marka haddii aan qoraayo numberka 1 la qoraayo kombiyuutarku ma fahansana hal ma fahansana wuxuu fahansan yahay wax la yidhaahdo 001 oo haddii aynu idhaahno mid 4 bida ii samee aynu kala fahanna waxa bytes iyo bit ay kala yihiin aynu kala yar fahan waxaan u malaynayaa kanba inoo kala caddayn doonaa introduction The binary system refers to the manner in which the numbers are ordered for rendered for use in computers. Only 2 symbols, 1, 0, are employed to write these numbers with their positional notation determining their meaning. The binary system is written in the base of 2 system. معناheeduna waxa weeyaan computerku wuxuu fahmaa 1 iyo 0
amba uu shidan yahay amba uu xidhan yahay. Systemka la yidhaahdo binaryga systemka la yidhaahdaana wuxuu ku base garaysan yahay 2 halka keenu uu ku dhisan yahay 10 right waxaynu baran doonaa iyagana waxa la yidhaahdo hexadecimal oo asaguna 16 ku dhisan laakiin systemkeenu wuxuu ku dhisan yahay 10 systemka computerkana wuxuu ku base garaysan yahay 2 marka waxaynu ka hadlaynay markii dhowtoole waa kuwaas right haddii aynu u qorayn marka haddaba 1101 waa 13 marka kelmad numberka 13 qoraysid adiga waxa weeyaan waa 10 lagu dhiftay 1 loo geeyay 1 lagu dhiftay 3 13 hase ahaatee computerku wuxuu fahansan yahay waxa la yidhaahdo 1101 ayuu qoraya 1 wayna shidnaato halka ugu horeysa ay shid deetana ka ku xiga bakti haddana shidta ku sii xigta 4 bit ayaa lagu sameeyey macnaheeduna uu yahay 2 to the power of 0 waa 1 shay kastood 0 ku power garaysa waa hal weeyaan waa waxa la isla fahansan yahay right markaad qoraysid numberka 153 tusaale ahaan de computerku san buu fahansan yahay ma fahansana 153 qorno ma fahansana shay kasta na siduu ay uu qoran yahay tusaale ahaan 1 inaku 1 baynu qornaa laakiin binary marka loo qorayo waa 0001 marka loo qor 2 waa 0010 3 0011 sababta ay u noqotay 11 waa maxay 3 waayo wayna ka nidhi halka koobaad 1 bay u dhigantaa halka labaadna 2 bay u dhigantaa marka waa mise waa 2 haddii halkii labaad ay shidan tahay waa 2 halkii koobaad ay shidan tahayna waa 1 isku geeyaa 3 manayn haddii halkii koobaad ay bakhtisan tahay waa 0 haddii halka labaad ay shidan tahay waa 2 meena 2 ahayn marka 7 ka soo qaad 7 halkii koobaad way shidan tahay waa 1 halkii labaadna way shidan tahay waa 2 halkii saddexaadna way shidan tahay waa maxay 4 laba loo geeyo hal loo sii geeyo 7 soma marka computerka marka 7 qoray sideedanba saaxiibka maase Facebook ugu diraysid amba aad ugu diraysid email aad ugu diraysid computerka wuxsan ayuu waxa weeyaan u fahansan yahay oo uu qoranaya nambaradii waa kuwaas kelmadaha kalena waynu arki doonaa marka waxa jira wax la yiraahdo ASCII table wax la yiraahdo ayaa jira oo ku dhisan luqadda waxa weeyaan Ingiriisiga Japanese gooniye bay iska leeyihiin Chinese ku qaar gooniye bay iska leeyihiin Carabtu qaar gooniye bay iska leedahay sababta ay u leedahayna waxa weeyaan keyboardada ayaa kala duwan marka keyboardka marka aad qoraysid kelmadda A haddaad qoraysid oo kale waxa u dhigantaa 65 bay u dhigantaa oo some binary ahaan decimal ahaan saasay u qorantaa binary ahaana saasay u qorantaa hexadecimal ahaana saan bay u qorantaa 41 marka kuma sii dheeraanayne macnaheedu waxa weeyaan uun computerku waxaad fahantaa inuu wax binary la yidhaahdo uu fahmo oo 0 and 1 taas sababteeduna waxa weeyaan waayo transistor baa ku jira computerada transistorkaasina waxay shaqadiisu tahay inuu dabka amba furo amba xidho wanaad aragto computerkaaga marka powerkaa xidhaysid amba shidaysid amba waa on amba waa off amba waa 1 amba waa 0 haddaba aynu kasii maxay haddaba farqigu yahay 3 kelmadood bay haddaba tahay inaad kala fahantid so definition byte versus bit ayay tahay inaan kala fahno bit is the smallest unit of information that can be stored or manipulated in the computer bit haddaad maqashid waa shayga ugu yar ee computerka la manipulate garayn karo right
amba wax lagu ridan karo amba waa 0 amba waa 1 byte waxa weeyaan imise bit ayaynu haysanaa haddaad 4 byte dawadiga maqlay gigabyte amba 16 gigabyte ha noqoto amba 18 gigabyte ha noqoto amba 32 amba 64 gigabyte wadiga maqlay bytes marka waxa weeyaan imise bit ayay ka kooban tahay haddii markaa computerkiina siiyo 3 bit uu ina siiyo ilaa imisaynu ku bahrayn karnaa wad malaynaysaa 6 bit ka fikir inta haddii 3 byte layna siiyo 4 byte haddii layna siiyo jeeda inta bit aynu ku bahrayn karno هذا تري power to the 10th right بنقول بقول هذا تري واصح سنتها اوكي هذا بقى كلمة A مركز قريسي A65 أيو ديجنتها وين كنري وصلا وسيا قرمسة مركز كمبيوتر كو قراي مركز صاحب كو قريسي A keyboard keyboardka computerka ila number round buu fahmay wuxuu bedelanayaa waxa uu dhigan tahay 65 keyboardna computerka uu sii bedelaya numberadaas waayo wayna kinari waa binary amba 0 amba 1 buu fahma askaynu ka hadalnay oo ah luqadda ingiriisiga A waa 65 bay ka bilaabantaa B waa 66 markii computerka la qoraayay ee dadku isla fahmayeen keyboardada meel la isla dhigayay la lahaa keyboardka maxaynu wax walba u qornaa shay walba aynu ka dhignaa ayaa waxa weeyaan la isla fahmay ka haddaad high qori sidoo kale high h waxaynu nidhi waa 72 and I-na waxaynu nidhi waa 73 saad arkaysid 72 iyo 73 and then exclamation point waa 33 ka high markaad qoraysid ASCII waxay u bedelaysaa sida 72 73 33 oo computerkaagu dadana uu sii bedelayo luqadu asagu fahmayo ilaa kaladhada oo kalar kasta oo computerka ku arkaysta blue ha noqdo ama madow ha noqdo ama yellow ha noqdo wuxuu ka kooban yahay waxa la yiraahdo RGB oo uu taagan casaan green iyo blue red green blue bari hore waxa la fahmay haddii saddexda color ay isku dartid color kasta waad soo saari karaysaa right markaas haddaad yellow doonaysid yellow oo ah jaalada haddaad doonaysid waxay u dhigantaa 72 casaana 73 pixel waxa la yidhaahdo oo muxuu ahaa greena iyo 33 pixels of or blue saas ayuu yellow ku yimi waxa funny videoga ubahaga waxaad u malaynaysaa video bisad wax qoraysa hase ahaatee waa qof program qoray oo programka dabeetana bisadaa ka dhigay into for loop waxa la yidhaahdo amba loop waxa la yidhaahdo oo ku celcelinaysa intuu qoray kolna gacanteedii yareeda casad dhinac madow ka dhigay dhinacna casaan dhinacna caddaan oo deetana aad moodaysid adigu inay dhaqdhaqaaqaysa laakiin aanay dhaqdhaqaaq ahayn ay tahay uun sida loo manipulate gareeyay pixelska oo adiga arkay markaad sawir aad xoog u sii saartay diiradda inay pixelada yaryare sii bahalaysmaya ay bahalaysmaan daadadka yar aad arkaysid boxka u eg kuwaasaa pixels la yidhaha marka pixeladaas ayadoo for loop isticmaalay qof programmina for loop yana loop kastaba ha noqotee barandana loopka fara badan leh uu kaga dhaqdhaqaajiyey marka computerka waa input instruction amba waxa uu qof qoraayo compilerka ku dhacaysa compilerka dadna output wixii aad doonaysa in samaysid ayuu soo saaraya hadda waxaa jira wax la yidhaahdo algorithm kuna macnihiisu waxa weeyaan waa sidii adigoo shaah karnayo kale sonkorta soo qaad sonkorta inaan soo qaadin iska xal kaldhiga biyo ku shub dabka saar dabka shid
sonkor ku shub waxaasa algorithm la yidhaha algorithmkuna waxa uu muhiim yahay shayga doonaysid horta waa inaad marka hore bal siduu u dhacayay aad qortid ood luuqadaad fahmaysid aduu ku qortanba soomaali ha noqda ama ingiriis ha noqda markaad qortidna dadna sida program ahaan aad ugu bedeli lahayd aad u sii bedesho marka tusaale ahaan haddii aan doonayo inaan qoro website la yidhaahdo somali book oo kale amba somali facebook haddaan qoraayo oon doonayo qofku marka ugu horreysa u yimaado inuu magaciisa iyo magaca aabihiis iyo emailkiisa iyo password uu samaysto shayga ugu horreeyaan samaynaya waxa weeyaan bogos magaca waa kow right qofka magaciisii bogos uu ku rido markaan bogoskaas sameeyo laba magaca aabihiisna bogosaan u sameeyo aabe saddex emailkaaga afar muxuu ahaa passwordka haddaba maxaan doonayaa inaan sameeyo waxaan doonayaa somali facebook inaan sameeyo oo dadna qofka magaciisii iyo magaca aabihiis emailkiisa iyo password uu samaysto marka hore soo maha haddaba maxaan sheeg garayn markan magaciisa uu qofku type gareeyo uu qoro waxaan leeyahay haddii af ingiriisian ku qoranayo if magac exist haddii magacani magac hore qof u sheegtay uu yahay actually taasi muhiim ah waayo magacu doono qof ku sheegan kara emailkaynu sheeg garayna marka intaan siiyo uu qofku deetana shan submit gare si uu sameeyo systemkayga uu galo amba database-kayga haddaba waxaan leeyahay halkan baan deetana qorayaa waxaan leeyahay if email hore u jiro hadduu qofka emailkiisa hore uu jiro deetana waxaan leeyahay shaashadda ugu qor emailkani horuu u jiray ma doonaysaa inaad ma waxaad ilowday password kaagii ka hadduu qofku haa ku dhifto deetana password reset ayaynu u sameynaa right if haddii qofku riixo haa deetana waxaan leenahay reset password ka passwordkii baynu u reset garaynaa qofka sidaynu ugu reset garanay baynu ugu reset garaynay else fadlan email cusub
dooro. Right? Passwordkana saasoo kale aan samayn karnaa, right? haddii passwordkiisu uu khaldan yahay passwordkiisu aanu ahayn if password uu ka yar yahay 6 xaraf iyo calaamad waxaan leenahay shaashadda ugu qor qofka fadlan password adag samayso. marka waad fahantaan u malaynaya algorithmku gibiisaba waxa weeyaan intaanad programkaaga qorin waa inaad ka fikirta programkaaga wuxuu samayn lahaa waxaa dhici lahaa haddii qofku wuxuu waa inaad fahanto dadku ilan isku wala mid maaha dad baa iska ciyaari kara qaar baa waxa weeyaan iska haaggaraysan kara waa inaad insanity check waa inaad samayso waa inaad algorithm samayso siday wax u dhici lahaayeen markuu qofku la interact garaynayo computerkaaga websitekaaga amba wuxuu doonaba ku jiro waxaanu baran doonaa functions waxa la yidhaahdo waxaanu baran doonaa conditions waxa la yidhaahdo boolean ayaan baran doonaa oo haya run iyo beena loops baynu baran doonaa oo ah sida bisadaasi say u dhaqdhaqaaqaysay loopabka lagu sameeyey oo ah shaygaa kusoo celceli ilaa ay wax dhacaan amba ku celceli ilaa weligeed amba ku celceli ilaa qof meel taabto ayaan baran doonaa variableskan baran doonaa oo calaamadaha khaanadaha wax lagu ridaa ee computerka dhexdiisa threads baynu baran doonaa waxaanu baran doonaa events baynu baran doonaa oo ah markuu qofkaasi waxaa ku dhifta maxaa dhacaya markuu sidaa sameeyo maxaa dhacaya imanka shay kasta oo samaynayo sanadaha ku dhifto right waxbaa soo baxaya marka maxay dhacaya markuu qofkaas ku dhifto haddaba haddaynu is nidhaahno luuqadda c la yidhaahdo oo ah luuqadda aynu ku bilaabi doono programkan lecturekan glasskan cusub aynu ku bilaabi doono haddaynu is nidhaahno waxaad qortaa shaashadda waxaad kusoo qortaa kelmadda la yidhaahdo hello world oo ah kelmad luuqad kasta oo la qoraayo lagu bilaabo haddaynu is nidhaahno saasay c u eeg tahay ha ka fikirin say u eeg tahay waxbana ha ka yaxyaxin waynu baran doonaa laakiin saasay c u qoran tahay waxaa jirta haddaba luuqad la yidhaahdo scratch oo loogu talagalay carruurta inay programka ku barato dadka cusubina ay ku baran karaan scratch markaas san bay u eeg tahay scratch.mit.edu waad arki doontaa haddaba programkii aynu arkaynay ee sidan ahaa c sidan u qornaa ee ahaa #include std.studio.h amba stdio.h integer main void curly braces print hello comma world and then the \n or new line programkan waa sida c dadka anigoo kale ay qoraan si ay computerka uga shaqaysiiyaan laakiin waxaan ku tusayaa scratch oo ah meel ay fududahay sida wax loogu barto oo loogu talagalay sanadhe carruurta iyo dadka cusub inay wax ku bartaan bal u eeg sida ay hello world ay waxa weeyaan oo coda ay u dhisan tahay marka qof uu ku dhifto go amba greenka uu ku dhifto play sound waxaad codkan siida until then ilaa codkaas uu ka dhammaystirmaayo bal haddee waxaanu nidhi marka qof uu ku dhifto main markuu tago amba functionka main la yidhaahdo marka uu qofkaasi uu tago u yeedho waxaad printing garaysaa kelmadda la yidhaahdo hello world ilaa ay ka dhammaanayso kelmaddaasi dadna line cusub bilow
labadaas say iskugu mid yihiin eg markaa greenkaynu ku dhufanaynaa ka waran adduunka hello world ka waran adduunka hello world iska waran adduunka hello world taas macnaheedu hello world waa iska waran adduunka marka scratch adiga oo drop iyo drag garayn kara ayaad ku baran kartaa wax allaali waxaad doonaysid right marka scratch baynu wadi doonaa cna waynu ku dhex wadi doonaa si aynu labada u baranno kani waxa weeyaan de wax qof uu jiri karo oo halku doono geyn karo kana waxa weeyaan programkii ay luuqadaasi ku dhisnayd de waxa weeyaan luuqada c la yidhaahdo oo aan baran doona insha allahu tacaala halkaasaan ku joojinayaa intaan halkaa ku joojin aan lecturekan iska dhamaystirno marka waynu dul carari doonaa markaynu hello world inputka markuu yahay functionka say la yidhaahdaa waxay soo saar marka waxay odhanaysaa hello world outputkina waa kaas marka waxaan u malaynayaa inta dambe inuu ay la ciyaarayaan uun oy muxuu ahaa wadwadaan uun scratch marka scratch adigu dasa doontid bal waxaad doontid adigu waad samayn kartaa tusaale ahaan haddaan idhaahdo when clicked marka lagu dhufto controllers when clicked repeat 10 times 10 jeer waxaad ku celcelisaa codka sound markaan ku dhufto marka waxay tidhi markaad ku dhufatid greenkaas 10 jeer waxaad ku celcelisaa hadalkaas iska waran adduunka hello world iska waran adduunka hello world iska waran adduunka hello world marka maaha wax iska waran adduunka almacna maaha iska waran adduunka maaha particularly wax muhiima maaha waxaan qoray laakiin waxaan kuu jeedaa uun sidaa aad drag iyo dropskaas aad u samayn kartid scratch ayaad waxa weeyaan waxaasoo kale u qori kartaa adoo isticmaalaya luuqada c amba python amba javascript amba java amba ruby on rails amba visual basic amba .net c sharp c++ insha allahu tacaalana waxaan baran doonaa c baynu wadi doonaa scratch inaka ku dhex wadna scratch markaynu iyo c markaan dhammaynana python baynu ku xigsin doonaa python markaan ku xigsana sql baynu ku xigsan doonaa amba my sql oo ah database halkaasaan ku joojinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu